ku-xigeenka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa wada hadal toos ah la galay madaxweyne Jacob Zuma waxaana uu sheegay in go'aan ku saabsan mustaqbalkiisa la gaari doono maalmaha soo socda. Waxa uu sheegay inay adag tahay waqtiga lagu jiro dadku si ay xal doonayaan. Mr. Zuma waxa lagu eedeeyay musuqmaasuq ilaa haddana wuxuu diidan yahay inuu isxasilo. madaxweynaha maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ ayaa loo doortay muwaadin Soomaali ah Cabdulqawi Axmed Yuusuf waxa uu muddo ka soo shaqaynayay maxkamadda waxaana uu shaqada ka soo bilaabay garsoore isagoo u dalacay madaxweyne ku-xigeen iyo hadda oo madaxweyne loo doortay waana Afrikaankii ugu horreeyay xilka qabta muddo ka badan 30 sano. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa sheegay in Washington aanay u ogolaan doonin Kuuriyada Waqooyi in propaganda ay ku afduubto ciyaaraha Olombikada ee qaboobaha isagoo ka hadlayay Japan ka hor furitaanka ciyaaraha ee Jimcaha. Mr. Pence waxa uu sheegay in Pyongyang ay adoonsato dadkeeda halisna ay ku tahay gobolkaasi oo dhan.